insha Allah waxaynu geli doonaa design theory horta waa maxay isaga waynu soo aragnay waa inaad su'aal isweydiisaa ah waxaan maxaan saa ugu samaynayaa maxaan ugu design gareynayaa nooca kan okay su'aasha marka waxaad isaga jawaabi kartaa markii aad garanayso principles of design, color theory, typography theory, layout theory, design thinking aad intaas oo dhan wax ka garanayso ama aad dhammaantiis wada garanayso ayaa su'aasha isaga jawaabaysaa. Marka intan aynu design theory-ga ku qaadan doonaa waxaynu ugu horeysiin doonaa principles of design. Okay, marka principles of design-ka waxaynu ku qaadan doonaa insha Allah balance, emphasis, contrast, movement, harmony, repetition. intaasna ku qaadanaa mid walbana wuxuu yahay insha Allah waynu eegi doonaa. Balance-ga haddaynu ugu horeysiino wax walba markii aad design garaynayso wuxuu kaaga baahan yahay balance inaad u samayso ama aad balance ku design garayso. Hadda muradigan wuxuu sameynayo macnaha just balance ahaan ayaan u soo qaatay. Muradigan markii aan tusaale ahaan baaskiilkan wadayo design wuxuu u baahan yahay inuu isbalance gareeyo haddii kale meesha uu ka duulaya. Balanbaalistan sidoo kale waxaan soo qaadanay inaad balance ku fahanto marka aad flyerkaaga halkan aad dhigto shape waa inaad halkan ka heshaa shape-kii ama mid u dhigmo waa inaad ka heshaa. Okay, marka balance-gu muhiim weeye markii la joogo design-ka khasab waa inaadan ka tagin haddii aad ka tagto wuxuu noqonayaa flyerkii ama posterkii ama design-ka aad sameynaysay mid kala dheer. Okay, su'aal ahaan gurigaaga markii aad design garaysanayso ama aad alaabta dhigayso haddii ka waran sariirta koobadiinka ilaado kuronya katabaanka waxyaalahaas oo dhan armaajada waxaas oo dhan hal gees hada ku urursid ka waran dhinaca kalena isku faaruq yahay waxa la yahay aniga gurigaan saa u dhigay alaabta design ma laakiin markii isku dheelitiran tahay aad dhinac dhigtid alaabtii halkan sariirtii dhigtid halkan aad dhigtid katabaanka halkan aad dhigtid miiska wax akhriska kursiga gaar u dhigtid wuxuu noqonayaa balance quruxna waa soo baxaya laakiin sada hal meel ku urursid waxa qaabdaro ayuu noqonayaa marka waa inaad iska ilaalisaa waana inaad ogtahay balance wax la dhaho inuu jiro oo ku qabsanaya haddii aadan marin markii aad wax design garaynaysid. Okay, marka balance-ga waxaa jira dhowr qaybood baa jira. Laba qaybood waa maxay symmetrical balance inaad samayso oo ah markii aad su'aal ahaan shape aad halka dhigto hadda waa aragtaan pivot-kan wuxuu halkan kala barka u joogaa halkanna waxaa saaran laba shape oo isku mid ah xaggana laba shape marka dhinacna ma u leexmayo laakiinse haddii ay kala duwan yihiin balance-ga baa lumaya. hadda shape-kan iyo shape isku sibay u adeegsaday labadii dhinac ee design-kiisa waa balance. Asymmetrical baa jira oo ah adigoo balance-gina ilaalinaya ayaad kala duwi kartaa qaabkay u yaalaan. Okay, qaabkay u yaalaan baad kala duwi kartaa marka waad dareemaysaa marka aad design in badan ku jirto maskaxdaada xitaa la qabsanaysa ishaada xitaa train garaynaysa waxa kan markaad sida u aragtid haddii aan balance ahaan wax dhaaysa okay halkan balance ma waa in balance laga dhigaa si automatic ah laakiin haddaadan kula ogeyn ama aadan ogeyn wax balance inuu jiro waxa laga yaabaa inaad sidaada aad ku saxan tahay oo dhahdid okay anaaba saxsan ba unbalance ma maxay inaad dhinac moogta u badisid xogtii ama shaybabkii ama moogta wax kasta oo u baahan in la eego inaad dhinac isaga badisid waad garan kartaa hadda design-kan oo kale waa unbalance waxyaalo badan buu unbalance ka yahay color-ka farta ilaado kuronya contrast-ga meelaha sawirada la dhigay waa unbalance loogooyinka meesha la dhigay white space xitaa malaha wuu buuxaa saas uu hawada u marayaa marka waa unbalance. Sidoo kale kuwa kan tusaale waad u qaadan kartaa unbalance baashan in xagga xoogaa laga dhigay ahayd kursigan mid u dhigma waxaad meelahan in la dhigo marka sidoo kale shapes-kan waa unbalance isku dhex yaacsan yihiin. Okay.